إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ممتاز معراج حسن وقبل داير oo ku cod macaan akhriska quraanka marar badan ka soo muuqatay tartamo kala duwan kuwaasi oo ay ku guuleysatay kaalmaha ugu horeeya. Bismillahir Rahmanir Rahim magacaygu waa Mumtaaz Macraaj Xasan waxaan ku noolahay magaalada Hargeysa waxaan ahay ardayad waxa aad u yar in la helo qof da'yar oo quraanka ilaaliye kuna dhiiran inuu ka qayb qaato tartamo adag. waxaan galay tartamo dhowr ilaa 3 tartan alxamdulillah 3 tartan baan ku soo baxay. Mumtaaz waxay quraanka dhameysay sanadii 2016 walina waxay wadaa akhriska iyo ilaalinta quraanka kariimka ah. quraanka waxaan xifdiyay 2016 codkaygu wuxuu dibadda u soo baxay markii lagu soo casuumay tartan kamida tartanada la qabto Al-Nasiha Media ay qabato tartankaasoo aan ahayn arday 600 alxamdulillah aanan ka mid noqday ardaydii guuleysatay kaalinta koobaadna aan u galay. sidoo kale waxaan ka qayb galay tartan ay qabato warbaahinta nolosha islaamka alxamdulillah tartankaana waxaan galay kaalinta labaad. sidoo kale waxaan ka qayb galay tartanka MMTV oo qabto alxamdulillah isagana heer wanaagsan waan ka gaadhay. من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. hooyadii bay ku dhiirigelisay iyadoo in badan igu soo taabtay haddana doonaysaa inaan heer wanaagsan oo halkan maanta taaganay heer ka wanaagsan aan gaadho. dadweynaha laftarkooda way dhiirigeliyeen oo inaan halka ka sii wado. sidoo kale waxay sheegtay halka ay rajaynayso inay ka gaadho quraanka. insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ka gaadho heer aan insha Allah bidmillah aan wado duuba 30 jis bidmillah taala duu ilaahay la garab galo. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ugu dambeyn Mumtaaz waxay fariin u dirtay dhammaan bulshada ay ku dhex nooshahay iyadoo kula dardaarantay inay quraanka bartaan ilaaliyaan mas'uuliyad weyn ay iska saaraan. waxaan leeyahay quraanka waa in la dhigtaa kaliya dhigashadiisu maaha laakiin macnaha iyo camal falid ayaa intaas oo dhan xitaa si raacsan. waxaan leeyahay biidhnillah taala quraankiina barta heer wanaagsan ka gaadha macnaha wax walba insha Allah. Habiba Mataan Hori MMTV Hargeysa.